magaalada Muqdisho weerar ismiidaamina oo maanta ay ku qaadeen koox ismiidaamiyaalihi ayaa waxaa ku dhintay 7 qof waxaa ku dhintay 11 qof oo 7 ay ka mid tahay ismiidaamiyaashii waxaana ku dhaawacmay 15 qof halkaas oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay aad u caabiyeen kagana hortageen ismiidaamiyaashaasi warbixintaasi waxay noo haysaa Hani Xaaji Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho 10 ruux ayaa ku geeriyootay halka ay ku dhaawacmeen 15 ruux dadka geeriyooda ayaa waxaa ku jiray kooxda weerarka soo qaaday oo tiro ahaan gaarayeen 7 ruux laba ka mid ah 7daasi ayaa waxa ay isku qarxiyeen darbi ka mid ah wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya halka 5 kalena ay isku dayeen inay gudaha u soo galaan wasaaradda balse waxa ka hortagay oo barxadda wasaaradda ku laayay askartii ilaalada ka ahayd wasaaradda taliyo ilaala ka ahaa wasaaradda iyo dhaawac fudud soo gaaray mid ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda ayaa waxa ay ka mid ahaayeen dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay sidoo kale dadka geeriyooda ayaa waxa ay ahaayeen shacab sida uu warbaahinta u sheegay afayeenka wasaaradda amniga dawladda Soomaaliya Maxamed Yuusuf kale kooxda ugus ayaa waxa ay soo qaadeen weerar cadawtooyo oo ugu tala galeen inay ummadda Soomaaliyeed kula dagaalaan ay ku baabi'iyaan gaar ahaan tacliinta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare oo dadkiin hidaha iyo aqoonta waddanka meesha laga hagayo inay ahayd waxa halkaas marka lagu dilay dhammaan kuwii weerarka soo qaaday kooxda ugus oo ka koobnaa 2 isqarxisay iyo 5 askar oo ciidan ah sidaad aragteenba banaanka wasaaradda barxadda baarkinka la dhigto ayaa lagu soo afjaray waxay ka soo galeen dhabarka dambe ee wasaaradda wadada ka imaatay safaaradda Liibiya halkaas markay gaari ku qarxiyeen waxa la dhiil gareenayo la dagaalay askari ka tirsan ciidamada amniga halkaas uu ku dhintay dhinaca kale wasiirka wasaaradda amniga qaranka dalka mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa goor dhaweed warbaahinta shajaraa'id u qabtay isla markaana ka hadlay weerarkii maanta lagu qaaday wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dalka halkaas waxa ku geeriyooday sidaad la socotaan dad shacab u badan oo albaabka qaraxa uu ka dhacay ku dhintay ilaa 8 qofood raggan markay soo galeen weerarka waday runtii anigu maanta waa tagay waa soo arkay sawirradooda baan soo arkay ragga dagaalka soo qaaday dad caruur u badan oo aad u yar oo soo marin habaabiya ayayna u badnaayeen qaraxa markuu dhacay waxa gudaha soo galay ilaa 6 qofood qofkii qaraxa waday oo gaariga waday albaabka hore ayuu ku qarxay meeshaas way meesha uu dadka 8 qofood oo shacabku ahaa ay ku geeriyoodeen 6 kale markay meesha soo galeen waxa hor istaagay oo runtii ka hortagay qaraxaas inuusan dad kale meesha isku baabi'in sida meesha ka warqabtaan waxaa degan wasaaradda kale wasaaradda petroolka iyo macdanta u degan tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaan aad ugu faraxsanahay marka hore inay idin sheego in qof wasaaradaha ka tirsan hay'adaha dawladda uusan meeshaas ku geeriyo hay'adaha labada wasaaradood uusan ku geeriyoonin meeshaas nasiib darro waxaa naga geeriyooday hal nin oo ah ciidanka nabad sugidda ah oo ah ninkii qaraxa baabuurka istaajiyey markii ugu horreysay waxaa kaleeto ku geeriyooday askarigii mas-uulka ka ahaa ilaalada wasaaradda oo ahaa askari laba xidigla boliis ah labadaas qofood ayaa naga geeriyootay iyo 8daas qofood oo shacabka ahayd waxaan aad iyo aad marlabaad u diray tacsiif iiraaniya leh dhammaan shacabka Soomaaliyeed anoo ku hadlayo magaca xukuumadda mudane Cumar Cabdishiid iyo madaxweynaha magaca madaxweynaha anoo ku hadlayo waxaan rabaa inaan aan iraahdo samri iimaan intii dhimatay Allah naga wada siiyo anaga dhan bay naga wada dhinteen ciidamadii ilaalada ka haya xarumaha dawladda ayaa heegan xoogan ku jiray maalmahan tan iyo markii la weeraray jaamacadda Gaarisa oo ay dad badan ay ku dhinteen weerarkani waxa sheegtay xarakada Al-Shabaab